inaan helo qof labaad oo haddii qof kale kula caawinayo lacag kale ayaa loo baahnaanayaa waad fahantaan u gartay suurtagal ma noqon kartaa inaad kirada naga caawisaa يعني إن كردا لقى عاويو لكن أنا بينكم مش يجيو كم أورنيو أوكي رياضو أنا كعاونية كردا مايا رياضو أنا وحبك هابحين مينو معاكو قد عاي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته داودياشي إذا شرفت له حلقة دينا مانتا وحن كل مدونا ميد كميدا دادك ديباتيسان oo ku sugan halkan Hindiya waxaana ku dhacay kansalka cunaha dabcan wuxuu waayay codkiisii laakiin wuxuu hadlayaa si aad u adag muddo 3 sano laga joogo qaar ka tirsan dadka khayrka jecel ayaa halkan keenay si loogu bilaabo daaweyn iyo qalliin laakiin nasiib darro way u suurtageli weyday waanu awoodi waayay wiilka dhalinyaradu inuu qalliinkiisa dhameystirto laakiin wiilkani wuxuu noqday wiil u xayiran $5,000 waxaanu noqday mid ka rajo dhigay qalliinkii uu halkan u yimid waxa kaliya u baahan yahay wiilkan in loo cusboonaysiiyo fiisaha loo cusboonaysiiyo iyo diyaaraddu laga bixiyo si uu ugu noqdo dhulkiisii kadib kooxdayadii ayaa la hadashay waxayna ku yiraahdeen waxaan haynaa qof weyn oo faaliga qaba kaasi oo u baahan cid caawisa weliba waxay u sii sheegeen waayilka bukaanka ee halkan ku sugan inaanay cid la socon halkan Hindiyana wuxuu u yimid qalliin kaasoo ku sugnaan doona halkan 2 bilood amba bil kadib waan la hadalnay hadda Bashaar in yar kadibna waxaan sugaynaa inuu soo gaadho nala socda nalana arka natiijada imtixaankan ما شاء الله تبارك الله walaalkay soo dhawow ilaahay ku dhowre halkan soo fadhiiso hawshii way kala hadleen dhalinyaradu Soomaaliya waxay go'aan qof caawinaysa kaasi oo qof u baahan caawin kala istaagta waan kaalmeeyaa dadka waad kaalmaysaa dadka u baahan kaalmada waa soo fiican arrintan aan ka wada hadlaynaa waxay ku saabsan tahay qof weyn qofkan aan ku sheegna riyaadow waa qof faaliga qaba waxaan u baahan yahay caawimo marka dawada loo dhameystiro iyo marka diyaaradda la saarayo waxaan noo harsanaa halkii uu degi lahaa waxaan anagu adiga kugu dooranay in waayilkani adiga kula dego maxay kula tahayna ma waxaad ka wadaa qolkaaga kula tagaya adigu kula degaya waan gartay anigu waxaan teganahay dabaqa labaad ayaa degan tahay qaado u baahan qaaditaan micnaha يعني ما adiga qaadaya faalku jirkiisa miyuu ku dhameystiray waliba faalig daran ayuu qabaa ay carruurtiisa haway carruurtiisii anigu wax dhibo ma arko adigu wax dhibo ma arkaysi waxaan ka sii jeclaan lahaa inaan helo qof labaad oo haddii qof kale kula caawinayo lacag kale ayaa loo baahnaanayaa waad fahantaan u gartay suurtagal ma noqon kartaa inaad kirada naga caawisaa يعني إن كردا لقى عاويو كبا سوقد أباها يو كله مثلا بالصورو أديكو هاي كالكو عاوية محاط بهان تاي وليبا وهديت أودو إنو كل دقو لكن أنا بينكم مش يجيو كم أورنيو أوكي رياضو أنا كعاونية كردا مايا رياضو أنا وحبك هابحين مينو كردا إن شاء الله بل أديكو يمكا دباساتو كاستام هاي تاي كانسل كعناي ودحي تداني كي عاوني أي هالكني كيني معناها أديكو وحبت حلقن كنت مدبا داد أياكو عاوي وحلقن كو كيني تمركي هالكني كينين خرجكي baxay ayaa batay waani awoodi waayay qarashka ayaa ku batay awoodi waayay way hadaba riyaadow adiga imka xaaladaada ma laga yaabaa in lagu daweeyo oo lagu guuleysto codkaagina ku soo noqdo laga yaabaa inaan isdaweeyo makaanigu laakiin lacagta inta laga ku baxaysa qalliinka ma awoodo yani waxaan awoodan qarashka qalliinka laakiin maxaad u tagi weydaa adigu riyaadow waan jeclaan lahaa inaan u tago hooyaday iyo aabbahay iyo waliba qoyskayga waayahay riyaadow annaga run ahaantii qofkan kuu sheegaynay qalliinka u baahan isagu ma joogo bes laakiin riyaadow annagu waan ku tijaabinaynay waxaan eegaynay inaad tiraahdo keena odayga ana mas-uuliyaddiisa qaadaya ana aabbahayo kale ka dhiganaya iyo inaad nagu tiraahdo anigiibaba qalliin u baahan qalliinkaaga imsaa ku baxaya $4,000 ood weliba dhahdo anigiiba $4,000 oo qalliina u baahan miyaan markaa culays kale is saari karaa waad fahantaan malanaya oo weliba bilaa kiraan ku haynay haddana midda labaad riyaadow eekan waa mikrofoonka codka duubayay codkayga duubteena eeg halka ma arkaysaa iyo macal muuqaalkaagii mar haddii aad tijaabadeydii aad ku guulaysatay waxaan ku haynaa abaalmarin yar ii sheeg qalliinka imsa ku baxaya qalliinkayga $4,000 baa ku baxaya $4,000 aan rasuulkeena ku salino alayhi salaatu wasalaam qabso riyaadow intani waa $5,000 maxaa kugu dhacay qalliinka ayaad ku galaysaa ma garatay waxaana ku soo haray $1,000 taasna ay waxaad ka dhigataa waxyaalaha aad u baahan tahay kulli qiimo dhimis oo lagu sameeyo 40,000 Soomaa insha Allah qiimo dhimis weyn bay ku sameyn doonaan wax kastana way iska hagaagi doonaan anaguna wax kasta horaan u soo weydiinay anigana run ahaantii sawirka qalliinka ayaan walaalkii Maxamed ka qaaday
sidaasna lacagta kuugu soo ururiyay biidni illah qalliinka waad geli doontaa yamanna waan isku arki doonaa codkaagana waad maqli doonaa insha allah iminka baraankii kuma samaynaysid soomaa baraankiya wallahi baraanka kuguma samaynayno igara laho riyaado waxaan doonayaa inaan xalqadeeda dhamaystirto xalqadanna waan duubnay waxaan jeclahay inaan ku macsalaameeyo lacagta xakan ku rido biyahaagana iska sii qaado insha allah waan ku rajoweyna codkaaga inaan maqlo walaalkay riyaado maca salaama daawadayaasheeda sharafta low wuu noocya badan yahay qurbuhu laakiin qurbaha ugu adagi waa qurbaha nafta waxaan ku sugannahay New Delhi oo Hindiya khayr ayaan isku ognahay sidaas iyo maca salaama qof kurbaysan oo kurbada ka dulqaata ogsoonow adigana ilaahay ayaa kurbada ka dulqaadaya adduunyo waa imtixaan alla ayaa isku keen imtixaamaya alla wuxuu yidhi subxaana wa tacaala isku naxariista si aan annaguna idigu naxariisano walaal sadaqadu waa shay waajib ah oo ina saaran oo inaga xijaabaysa dib walba oo inagu soo food leh alla aan ka cabsanno dadka masaakiinta iyo agoomaha aan hoos u eegno aan ku caawino intii karaankeena ah ogsoonow waxaad la baxdaa ilaahay ayaa meel aanad ka filanayn adigana kaa irsaaqi doonaa haddaba si uu alle dalkeena iyo dadkeenaba uu u hagaajiyo aynu ku dadaalno sadaqada wanaajinta dadka aynu joojinno aflagaadada iyo ceebahan social mediaha la isku dhex marsiinayo ogsoonow qof muslina ardaygiisa haddii aad wax ka sheegto adigana alle ayaa kaa abaalmarin doona walaal si aynu isku jeclaano aan is caawino dadkeena masaakiintana aan wax siino ilaahay naga dhigo kuwii isku gargaara oo wanaag isfara xumahana iska naxya walaal mar walba ka qayb qaado miskiin iyo agoon qoodintiisa adigana ilaahay ayaad meel aanad ka filanayn kaa irsaaqaya assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh يعيش الهم ما يشكو ولا يعدي اجبر تجبر يبقى خاطرك المجبور أجرك يكبر هم يذهب يأتي سرور أنت الحاضر للمستقبل أنت الأمل ومنك النور لست فقيرا فيك عطاء كل البذرة قطرة ماء لا تيأس فالجبر شعور اجبر تجبر مهما كان الهم كبيرا فالله برحمته أكبر خاطرك مجبور